الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد موضوعنا walaalayaal wuxuu ku saabsan yahay libaaska ama dharka ayuu ku saabsan yahay in ilaahay adoomadiisa ugu nicmeeyey ee maanta annaga aan garan la'nahay. sidaa darteed walaalayaal waxaana laga doonayaa inaan ilaalino nicmada ilaahay uuna siiyey. walaalayaal allibaasu min nicami illaahi calaa cibaadihi, addoommada ilaahay dushooda nicmooyinka ugu nicmeeye weeye dharka. ilaahayna waa uu noo tilmaamay jala wacalaa, wuxuu odhanayaa rabbigeen, yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan, ilmo aadamo waxaanu dushiina yeelnay, qad anzalnaa calaykum ay qad khalaqnaa lakum, waxaan idin abuurnay libaasan dhar oon la siinin makhluuqa intiisa kale. dameeradii iyo eeyihii iyo daanyeeradii oo dhan watimiyaad aragtaan, waa maya, ilaahay baa idinku sharfay subxaanahu wa tacaala. cowradiina bannaanka lama dhigin, waxaad ku asturataan buu rabbi idin siiyey subxaanahu wa tacaala. libaaskaasoo yuwaari asturaya saw-aatikum cowrooyinkiina, wariishan iyo mid aad isku qurxisaan oo itmaama ah oo kaamil ah oo aad isku qurxisaan buu rabbi idin siiyey. ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu intaas noo sheego wuxuu raaciyey walibaasu taqwaa, libaaska taqwada. libaaska waa laba qaybood, mid daahira iyo mid baadina. labiska aan qaadanayno waa midka daahirka. walibaasu taqwaa, libaaska cabsida allah iyo diinkiisoo la ilaaliyo, daalika kaas khayrun khayr badan, oo wuxuu ka khayr badan yahay midka daahirka ah, ayuu ka khayr badan yahay. sidaa darteed maanta dadka dhallinyarada joogtaahi ama aadanka maanta joogo waxay ku turteen xaqii ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ugu nicmeeyey. maxaa yeelay lebiskii laysku asturayay waa kan laga wada qaawan yahay. dhalinyaradii waa kaad aad aragtaan, hadday sii socdaan hadday soo socdaan ay qaawan yihiin, oo dharkii laysku dhejinayo, oo saraawiishii la jeexjeexayo, jilbahoodii iyo bowdooyinkooda ay jeexjeexan yihiin. soo uma jeedi? ma sidaasuu ilaahay idin yeelay subxaanahu wa tacaala, mase ina dharkiina jirkiina ku asturataan buu rabbi u sameeyey subxaanahu wa tacaala. walaalayaal rabbi ka baqa. waa kan gabdhihii cabaayadaha magaalada ku socdo oo xijaabkii jirkooda inay asturaan laga doonayey, iyo dharkii ilaahay aadanaha ugu nicmeeyey, waa kan ay ka qaawan yihiin. daalika arrinkaas buu yihi alle subxaanahu wa tacaala. arrinkaa waa kee ishaarada ah in ilaahay dhar ini siiyey oo idin gooni yeelay min aayaatillaahi, ilaahay aayaadkiisa wey. mujeeda saasuu leeyahay alle subxaanahu wa tacaala. sidaa darteed alle wuxuu leeyahay lacallahum yadakaruun, waxay mudan yihiin inay waantoobaan. war waantooba oo diinka ilaahay qaata subxaanahu wa tacaala, oo dharka ilaahay idinku asturay oo idin siiyo gooni loogu siiye aadanaha, hadda nicmadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku kuftinina.